بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، magacay waa Cismaan Maxamuud oo jooga wadanka Ingiriiska. halkan waxaan ka salaamayaa dhammaan muslimiinta meel kasta oo joogaan. salaanta salaamka salaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. sidaad la wada socotaan beryahan waxaa jiro cudur oo caalamka oo dhan ku faafay oo aan ka tegin taajir fakhiir cid kasto. marka ilaahay waxaan ugu baryaynaa inta dhimato inuu ilaahay naxariisto, inta xanuunsan inuu ilaahay caafimaad siiyo. sidaad la socotaan wadamada caalamka waxay ku dhawaaqeen self isolation ama bandoo sidaad u taqaanaan. marka ayagoo la raacayo awaamiirta dowladda waa in shuruudaha dowladda inay caalamka shacabka inay fuliyaan ayaa waajib ku ah si ay ugu badbaadaan cudurkan insha Allah iyo dhammaanteen ilaahay naga badbaadiyo. midda labaadna Soomaaliya waxay ku dhawaaqday in arbacada ay imaan doonto bandoo lagu dhawaaqay from 8 p.m. habeenkii ilaa subaxdii 5 o'clock ayadoo dowladda tixraacayso caalamka shuruudaha caalamka jiro sida oo dhibaatooyinkan si ay shacabkooda ugu badbaadiso. marka shacabkan waxaa laga codsanayaa inay awaamirta dowladooda raacaan si oo loogu taxadiro cuduradan ilaahay naga koriyo oo berito aan meel wax laga qaban karin jirin. maanta waxaa ku dhimanayso kumanaan qof ayaa ku dhimanayso, ma ahan hal iyo labo. marka dowlad kasta waajib ay ku tahay ummadeeda inay badbaadiso, shacabkana inay dowladda awaamirteeda raacaan. marka dhibaatooyinka jira waxaa ka mid ah Soomaaliya. waxaa loo baahan yahay, waxaan baaq u dirayaa madaxda Soomaaliya inay shacabkooda ka warhayaan. dad dhibaataysan ayaa jiro, dad aan wax haysan ayaa jiro. maadaama qofkii guriga uu joogayo haddana waxna uu haysanin, taasna dhibaato kale ayay abuuraysaa. marka waxaa loo baahan yahay inay dowladda ka warhayso dadka dhibaataysan, dadka xanuunsan, inay dardargeliyaan, inay dadkooda ka warhayaan everyday, inay ka warhayaan. madaxda waa inay la socdaan, ma ahan inay waxyaalo kale ku mashquulaan. waa inay la socdaan qof kasto, every single person oo Soomaali ah xaaladiisa meesha uu marayo. ilaan dadka madaxda markay mas'uul qaadaan waxa way ku qaadeen inay qof kasta Soomaali ah inay mas'uul ka yihiin. waxaa loo baahan yahay dowladana waxaan ka codsanayaa inay shacabkooda wax u qabtaan, inay dadka baahan wax siiyaan, inay degmo kasto inay dadkooda wax u qabtaan oo mas'uul ay ka saaran yihiin. dowladana dhaqaalaheeda sida prime ministerka uu noo sheegay waxay ugu talagaleen $5 million oo bangiga ugu talagalay inay dadka cuduradan inay dadku caawinayaan. marka waxaan ka codsanayaa dadka dhibaataysan inay ka warhayaan, inay dadkana isku naxariistaan, shacabka naftoodana inay isku naxariistaan waajib waaye, ma ahan in dowladda kaliya wax ka sugaan. waxaa loo baahan yahay inay qof kasta walaalkiisa inuu wax u qabto, qofka jaarkiisa inuu ogaado xaaladiisa meesha uu marayo. marka looma baahna qofkii oo lacag leh inuu qofka kale fakhiir ku fiirsado. almuslim akhul muslim weeye, sida nabi calayhi salaatu wasalaam noo sheegay inuu isku naxariisto. dukaanleydan waxaan ka codsanayaa inay sicir bararka dhaafaan. dad ayaa ka faa'iideysanaya hadda oo beecii kor u sii qaadaya. marka looma baahna, waxaa loo baahan yahay inay dadka u naxariistaan, ilaah u barakeenayo. marka insha Allah caalamka dhan waxaan ka rajeynayaa inay ummadda muslimiinta meel kasta qof kasta oo adduunka ku nool in la isku naxariisto. Soomaaliya khaasatan waa wadan oo Afrika ah oo aad oo dhaqaaleeda u yar yahay, ma ahan wadan Yurub oo kale. wadamada Yurub dadkii waxaa la yiri guryaha jooga laakiin waxaa la siinayaan, laakiin Afrika ma jiro qof wax ku siinayo male. marka waxaa loo baahan yahay qofka inuu dowladda waxaa loo baahan yahay inay dadkeeda shacabkeeda ka warhayso. qof kastoo maanta gaajo u dhinto dowladda ayaa loo xisaabtamayaa, ayaga mas'uuliyadda qaaday. marka waxaa loo baahan yahay inay ka warhayaan iyo ummadana isku naxariistaan. nin India jooga wuxuu yiri haddii aan cudurka ka badbaadno gaajo u dhimanayna uu yiri. marka ma rabna inay walaalaheena Soomaaliya meel kasta inuu qof kasta inuu caalamka inuu gaajo u dhinto. marka al isku naxariisto insha Allah. waan mahadsantiin, billahi tawfiiq.